إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وآمنوا برسوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عباد الله شرع الله لنا الاقتداء بالأخيار ونهانا عن الاقتداء بالأشرار ورأس الأخيار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به خاصة قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عباد الله شرع الله للمسلمين الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم وأحوالهم وهذه الآية وإن كانت سببها خاصة بغزوة الأحزاب فهي عامة في كل شيء وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عباد الله ولليال الله سبحانه وتعالى يا مهله الله تبارك وتعالى إن سوى فجيي إن أين صوغلنا بيت كيسا سبحانه وتعالى وعين كصوغلنا بيت إلهي توفيق ديسا إرادة ديسا أي قف ولبا كصوغلي أبد مركا إنو لأنهي حالة إنو لأنهي بيت إلهي سبحانه وتعالى كمينا سوغلين بيتك إلهنا سبحانه وتعالى وميلها إلهي وقدش عليها سبحانه وتعالى أرض إلهي تبارك وتعالى ميلها وقدش عليها وحوية مساجد يا كميضة سادلات الموضوع ما أنت وحو النقرية أو كسب سيئة القدوة الحسنة والسيئة القدوة الحسنة كذا يشون أكسن
lagu daydo dadka akhyaarta ah iyo in markaa la iska ilaaliyo dadka markaa ashraarta ah in lagu daydo waayo rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu noo soo dejiyey diin markaa aad iyo aad u wanaagsan oo ina faraysa dhaqan wanaagsan in markaa dhaqan wanaagsan markaaynu la nimaadno oo dhaqankaa markaaynu wanaajinno waxaa looga baahan yahay qofka muslimkaa qof kastoo muslima oo ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan sala allahu calayhi wasalam in marka uu raaco dariiqa ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqa alle iyo dariiqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam in markaa aynu raacno ayaa waajib nagu ah dariiqyada markaa ka soo hadhay dariiqa ilaahay iyo dariiqa rasuulka iyo dariiqii dadkii wan wanaagsanaa dariiqyada markaa ka soo hadhayna markaa in la iska ilaaliyo oo laga fogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo jideeyey in aynu ku dayanno dadka akhyaarta ee wan wanaagsan inaynu ku dayanno dadka akhyaarta ah ee dhaqanka wanaagsan ee diinta islaamku ay ka muuqato alibaatinka laguma dirsanin laakiin daahirka ay ka muuqato maxaanku dhahday diinta islaamku ay ka muuqato in markaa aynu ku dayanno walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inaga reebay saas oo kale in aynu ku dayanno ashraarta dadka xunxun ee dhaqanka xun inaynu ku dayanno ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa iyadaa waa inooga digay waana inoo diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala akhyaarta siaad wada ogsoon tihiin waxaa markaa madaxu ah waa rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam wa ra'su lakhyaar waxaa markaa madaxu ah oo hormuud u ah akhyaartane waa nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam in nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam aynu ku dayanno waana ra'su lakhyaar waxaa markaa madaxu yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala madax uga dhigay dadka akhyaarta ee wanaagsan ilaahayna subxaanahu wa tacaala si gaara ayuu inoo faray oo ilaah uu inoo amray rasuulka inaynu ku dayanno sala allahu calayhi wasalam aynu kaga dayanno dhaqankaaga inaad kaga dayato nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam camalka aad kaga dayato nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam aynu ku dayanno aynu raacno ilaahay si gaara ayuu arrintaa iyada inoo amray rabbi waxau yidhi tabaaraka wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana dhab ahaanba waxaa idinku sugan rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ku dayasho wanaagsan ayaa idinku sugan yay markaa ugu sugan tahay cid kasta may ugu sugan tahay maya ilaahay baa wuxuu yidhi liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir waxay ku dayasho wanaagsan rasuulka ugu sugan tahay sala allahu calayhi wasalam qofka maaragtay rajaynaya qofka ilaahay rajaynaya rabbigii rajaynaya maalinta qiyaamahana rumaysan wadakara allaha kaiira rabbigiina in badan xusay ama xusaaya ayay ku dayasho wanaagsan uga sugan tahay rasuulkeena sala allahu alay wasalam qof kastoo iimaan leh oo rabbigii rumaysan oo rasuulka rumaysan sala allahu calayhi wasalam ku dayasho wanaagsan ayaa ugu sugan rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam in markaa rasuulka aanu ku dayanno rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu u jideeyey fasharaca allahu lilmuslimiin muslimiinta ilaahay wuxuu u jideeyey aliqtidaa'a birasuulihi inay ku daydaan rasuulkiisa oo muxameda sala allahu calayh wasalam
maxaa lagaga daynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa isweydiin leh nebiga maxaynu kaga dayanaynaa sala allahu calayhi wasalam fii jamiici acmaalihim wa axwaalihim wa aqwaalihim acmaal oo dhan axwaal oo dhan waxaa lagaga dayanayaa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam camal kasta ood qabanayso ficil kasta ood samaynayso waxaad kaga dayanaysaa waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam cid kale kaga dayan maysid sheekh fulaan kaga dayan maysid saasoo kale waxa weeyaan qofku markuu samaynayo camal waa inuu rasuulka kaga daydaa sala allahu calayhi wasalam camalka rasuulku ma sameeyey sala allahu calayhi wasalam mise rasuulku ma samaynin hadduu rasuulku sameeyey sidee buu u sameeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam see buu u qabtay see buu camalkan ula yimid waa inaad isweydiiso camalka intaadan gudagelin ilaa camal waxa weeye rasuulka ilaahay ku dayashadiisu waa cibaado weeye waa cibaado cibaadana waxa u baahan tahay in la wanaajiyo cibaada waxa u baahan tahay in la wanaajiyo oo dariiqeeda markaa la mariyo ayay cibaado u baahan tahay walaalayaal marka camalka intaadan gudagelin bal horta waxaad isweydiisaa nebi maxamed ma qaban jiray nebi maxamed dib uu qaban jiray sideebuu u qaban jiray sala allahu calayhi wasalam dabeedna marka aad la timaaddo camalkiisa nebigu la qaban jiray calayhi salaatu wasalaam aayaddan iyada ah culimmadu waxa ay tilmaameen ama ay sheegayaan mufasiriintu wa haadihi alaaya wain kaanat sababuhaa khaasan bighaswati alaxzaab aayaddan sabab nusuulkeedu haba noqdo oo haba ku soo degto dagaalkii axzaab ama ghaswatulaxzaab haba ku soo degtee waxaa markaa culimmadu leeyihiin waa aayad caama weeye waa caam weeye fii kulli shay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyay wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu rasuulku waxa uu idin siiyo qaata wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam idin siiyo qaata wuxuu idin diidanna iskaga tago oo ka fogaada taa macneedu waxay noqonaysaa rasuulka raaca sala allahu calayh wasalam rasuulka raaca oo rasuulka ilaahay ku dayda oo dhaqan xumada iska ilaaliya rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu markaa ina amrayaa rasuulku waxa uuna siiyey in aynu qaadanno isagoo dhammaystiran in markaa rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ina siiyey aynu qaadanno imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahay fii tafsiiri haadihi alaaya ayaa wuxuu leeyahay haadihi alaaya aslun kabiir aayaddani waxa weeyaan waa asal weyn waxayna asal u tahay ku dayashada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku dayashada nebi maxamed bay asal u tahay in nebiga lagaga daydo fii aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalih nebiga sala allahu calayh wasalam in aqwaashiisa lagu daydo afcaashiisa lagu daydo axwaashiisa lagu daydo sida rabbi tabaaraka wa tacaala uu jideeyey in rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam aynu ku dayanno saasoo kale rabbi waxa uu noo jideeyey asxaabtiisa inaynu ku dayno walaalayaal rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo jideeyey awalan nebiyullaahi muxamed sala allahu calayh wasalam inaynu ku dayanno ficilkiisa aynu ku dayanno axwaashiisa aynu ku dayanno oo waxa weeyaan acmaasheenna oo dhan ficilkeenna oo dhan cibaadadeenna oo dhan in nebi maxamed sala allahu calayh wasalam aynu kaga dayanno saasoo kale rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo jideeyey in marka aynu ku dayanno saxaabadiisuna waxaan dad akhyaara oo wanaagsan in saxaabadiisa aynu ku dayanno walaalayaal rabbi waxau leeyay waasaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriina waاlansaar wاladiina اtabacuuhum biixsaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyay waasaabiquuna alأwaluuna kuwii u badiyey iimaanka ee iimaanka u horreeyey iimaanka u badiyey min almuhaajiriina waاlansaar kuwaasoo ka kooban ansaar iyo muhaajiriin wاladiina اtabacuuhum biixsaan iyo kuwa wanaag ku raacayba war ku dayasho wanaagsan baa idinku sugan ku dayasho wanaagsan baa idinku sugan saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadday yihiin muhaajiriin hadday yihiin ansaar iyo kuwii raaca markaa atbaacdoodaba
waxa idinku sugan ku dayasho wanaagsane war nimanka ku dayda ilaahay bayna la subhanahu wa ta'ala marka taasa guusha lagu gaaraya rabbi tabaaraka wa ta'ala wuxuu inooga waramay fa akhbara subhanahu annahu radiya عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأعد لهم جنات إلهي وحنا نقول يا سبحانه وتعالى ونقول أنه رضي عن السابقين الأولين كو إيمانك وهريي إيمانك وبديي إلهي تبارك وتعالى إنه كرال النقضي إنه الرب تبارك وتعالى وكرال النقضي هديهين مهاجرين إيا هديهين أنصار با إنه إلهي كرال النقضي وإنه شيء انت محاودر وأعد لهم جنات بو إلهي تبارك وتعالى الدياري جنات محي كهلين جنات كمحي كهلين وحي كهلين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحي راعي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد مركي الراعين أي نبي محمد أي كود ضيذين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكا استيقظني أنا كقد ضيذين با إلهي تبارك وتعالى وكرال النوضي مركا اللي أنشاء إلهي واحد كهليسا إلهي تبارك وتعالى كهليسا إن النبي محمد أتقضيت صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إن القضينا ولا اليوم سيدا إلهي تبارك وتعالى ونوجد لي الرسول كاينو قضينا يا الصحابة ساينو قضينا أيا ربي تبارك وتعالى wuxuu markaa inoo jideeyay atbaacdiisana markaa inaan ku dayano maxaynu kaga daynaa markaa fi jamiic al-a'maal oo dhan iyagaanu kaga daynaynaa saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabada rasuulka ayanu kaga daynaa walaalayaal awalan waxaanu kaga daynaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi maxamedna ilaahay baa ina amray inaynu ku dayano labaad ilaahay wuxuu ina amray oo inoo jideeyay أصحابتيسا إنو كدينو أصحابتيسا إنو رعنا ولا ليان هذا واحد يسويدين لما أنت إنو كدينا ولا ليان دقن كإسلام كواحد مودا فرها إنو كبحي حقيقة مركا إنو كهذلنو وحقيقة إنو تابنو ما أنت واحد مودا دقن كإسلام كلها فرها إنو كبحي يلا كدينا يا مانت وريالا كدينا يا مانتا هذا يلبس نغطو هذا يصعد نغطو هذه أي تهي هذل هذه أي تاي محن كنا وحكله يا ما أنت اللي قديني ولا ليا إسلام كانوا وحنا نفريا دين تنونا أكثر وحنا نفريسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه كدينه يا أصحابتي سولا ليا هذا ما أنت ولا ليا الواحد ذا كيسان إسلام كيودقن كيولها إنه فراك بحي إنه فراك بحي هذه أي تاي دلير هي هذه أي حبلة تهيبة ما أنت دقن كيونا أكثر إسلام كلها فروك بحي ولا ليا وحينا قرنين بمركا لو قدينا يا دقن حنبا جرا ولا ليال هذا نقطة حق اللبسك باللبسك النفيرية ولا ليال لبسك يانو كقدينا ولا واللبسك عاد حرنا يسو إلهي باكو السيا والنعمة وإلهي كوغن نعمة تبارك وتعالى لبسك أصبح على الربعينات كقدية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو ذا iyo nin xuro ma garanaysaa wuxuu yaan la garanayn oo gaal ah inaad kaga dayato lama rabo hadda nabi maxamed kaga dayan weydo labiskaaga oo labiskaaga aad waafajin weydo labiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo nabi maxamed iyo saxaabadiisa aad kaga dayan weydo hadda ogow cidda aad ku dayanayso oo dhaqankeeda raacday ama dhaqankeeda aad ku dayanayso baa maalinta qiyaamaha miciid aad noqonaysaa نبي محمد عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم النبي صلى الله عليه وسلم روحي مركا قوم اسكو شبهها قوم اسكو كيسية إيجا يكمدي هاي إيجا يكمدي هاي النبي عليه الصلاة والسلام هاي ما أنت يا مركا لبس كات كقدين صادقة مركا تما دن حيريسو أو دن أدينيسو أو كأنما أدمود حيوان وحساريهين ماذا حاجة أدمودو ياد كجد دينسا مركا ما الرسول قد كجد دينسا ما الصحابة قد كجد دينسا إن أنت يا مركا مرد حيديسو أو جلبها يجينيسو أو دار خفيفة يحرنيسو يكود دينسا ما الدور كيس صحابة يكود دينسا يكود دينسا جوابت واحد نقول السوالة ليال وحلقود دينه وضد مركا وصو بنبحي دقن كإسلام كيني بابيان بالقود دينه ولا ليال إنه إسلام كتايس كفهم على الدنيا ولا ليال
inaynu fahanno ayaa la doonaya walaalayaal idan markaa dhaqanka islaamku waa wanaagsan yahay walaalayaal labiskaaga kaga daya nebi maxamed sala allahu calayh wasalam surwaalkaaga ilaali qamiiskaaga ilaali shaarhkaaga ilaali nebi maxamed halkuu ku joojinaayey bal hadda u fiirso ilaa waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan qudwa xasana ku dayasho wanaagsan baa nebigeena inoogu sugan sala allahu calayh wasalam war madaxaaga markaad xiirayso waa inaad waafajisaa dariiqadii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam see nebi maxamed u xiiran jiray nebi maxamed waa xiiran jiray sala allahu calayh wasalam nebigeenu sala allahu calayh wasalam wuxuu arkay inan yar buu arkay timaha dhanna laga xiiray dhanna loo daayey muxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam bal ilmaha yar u fiirsada waa ilmo yar oo naqan oon dembi lahayn oo akhlaaqdii durba laga xumaynayo oo dhaqankii lagaga xumaynayo ya laba jir baa dhaqanka lagaga xumaynaya oo isagoon tallaabadiiba qaadin baa dhanxiir laga dhigayaa subxaana allah nebigu sala allahu calay wasalam ilmaha yar markuu arkay ee dhanxiirka ah ayaa nebigu wuxuu yidhi maxaasan loogu xiidhay war ilmaha yar ka wada xiira ama timaha u wada daayay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam amarkaasuu bixiyey nebigeennu sala allahu calayh wasalam qofku inuu wada xiirto oo isku wada simo iyo inuu markaa daysto waxba kama dhexeeyo wax ka dhexeeyaa ma jiro waxa ka dhexeeya waa dhaqan xumo waxa ka dhexeeya waxa weeyaan waa akhlaaq xumo walaalayaal labada waxa u dhexeeya waa akhlaaq xumo inaad timaaga wada xiirto waa la ogol yahay inaad timaha wada dayso waa la ogol yahay laakiin maxaa la ogolayn inaad qaybna xiirto qaybna aad ka tagto lama ogolo shareecada islaamku taa waa diiday nebi maxamed waa diiday sala allahu calayh wasalam idan yaan kaga daynaynaa markaa haddaba ila waa qudwa sayi'a baa la yidhahdaa taa yaan kaga daynaynaa dhaqan xumada waxaynu kaga daynaynaa niman gaalo ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala beeniyey rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam ilaahay tabaaraka wa tacaala sida uu noogu jideeyey in nebi maxamed aynu ku dayanno iyo asxaabtiisa baa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo jideeye uu inooga digay inaynu iska ilaalinno aliqtidaa'a bihim ay fi lbaraa'ati min almushrikiin nimanka gaalada dhaqankooda inaynu iska ilaalinno war nimanka gaalada dhaqankooda inaynu iska ilaalinno nimanka mushrikiinta ee ilaahay u shariig yeelay ee awthaanta caabuday oo ilaahay kayrkii wax moodaaya in markaa beri laga noqdo maxaa beri laga noqonayaa markaa dhaqanka ay wataan dhaqankan xunay ay wataan ayaa beri laga noqonayaa waana la khilaafayaa waayo rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay laqad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahiima waaladiina maca id qaaluu liqowmi innaa buraa'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah bal hadda u fiirsada aayadda qur-aanka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga digayaa fiiri nimanka mushrikiinta iyo gaalada dhaqankoodu nooga digaya ilaahi subxaana wa tacaala hadda ogow ilaahi tabaaraka wa tacaala waa ina jecel yahay markuu ilaahay uu leeyahay war waxaa xun iska ilaaliya yaa adiga maslaxa adduunyaya tu aakhira kuugu jirta waxa kuugu jirta dan baa kuugu jirta halka ilaahay iska ilaali uu ku leeyahay iska ilaali ama iska eeg uu ku leeyahay waxa kuugu jirta maslaxa adduunyaya tu aakhira kuugu jirta walaalayaal halka rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku leeyahay waxaa sameene taana maslaxa aakhira iyo tu adduunya kuugu jirta marka qofku inuu yidhaahdo maaha war diinta maxaa la iskugu cadaadinayaa war diinta maxaa loo adadkaynayaa war lama adadkaynayo ilaahay baa waxaa iska ilaali ku yidhi waxa ilaahay iska ilaali ku yidhina maslaxa kuugu jirta adigay dan ku tahay yaa sheekh cid kale danu ma aha wuxuu ilaahay ku faraayo adigay dan ku tahay cid kalena danu ma aha nafsadaada ayay danu tahay markaa ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa wuxuu leeyahay laqad kaana lakum uswatun xasana wallaahi dhab ahaanba waxaa idinku sugan ku dayasho wanaagsan fii ibraahiima waaladiina maca nebiyullaahi ibraahiim calayhi salaam iyo cidda raacday ee miciisaaba wallaahi ku dayasho wanaagsan baa idinku sugan yaa lala hadlayaa marka dadka muslimiinta lala hadlayaa id qaaluu liqowmihim markay ku yidhahdeen yacni tolkooda ama qowmkooda ay ku yidhahdeen innaa buraa'aa'u minkum war ogaada annagu beri baan idinka nahay innaa buraa'aa'u minkum yacni minkum waayo mushrikiinta annagu beri baan idinka nahay dhaqankiinna ma rabno dhaqankiinna ma qaadanayno wa mima tacbuduuna min duuni illaah
iyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala sokada aad caabudaysaan kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawa qofka muslimka waxaa looga baahan yahay caqiidadiisa inuu caddeeyo war waxaad mabda'aaga inaad caddaysa lagaaga baahan yahay ma aha mabda'aaga inaad qarisa ma aha markaasa waxay dhaha wa mima tacbuduuna min duuni illaah annagu waxa weeyaan beri baan idinka nahay iyo waxaad ilaahay sokadii caabudisaanba waanu ka gaalownay waanu beeninay ilaahay sokadii waxaad caabudaysaan maanta laga bilaabanne waxaanu isku ognahay waxa weeyaan cadaawa ayaan isku ognahay wax naga dhexeeyaa ma jiroon cadaawo ahayn bal hadda fiiri muslimiintaasaa odhanaysa ibraahim iyo intii raacday baasaa odhanaysa marka aayaddan waxa markaa yacni maaragtay ilaahay tabaaraka wa tacaala uu noogu caddaynaya ama uu noogu sheegayaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo nebiyullaahi muxamed in kudayasho markaa wanaagsan ay noogu sugan tahay kudayasho wanaagsan inay noogu sugan tahay aquulu qawlii hada waastaqfiru llah li walakum fastaqfir الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد عباد الله إلهي تبارك وتعالى نعموينكي سؤالي آد ببدين ونقول الله ديستي waxaa ka mid ah walaalayaal amarka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu amraya waa nicma waayo ilaahay wuxuu amrayaa wax maslaxadeena ay ku jirto ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu naga reebayaa wax markaa maslaxadeena aynu ku jirin tu adduunyo iyo tu aakhiraba sadaradeed nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ka dhigay ra'sul akhyaar buu ka dhigay ilaahay tabaaraka wa tacaala marka cidaanu ku daynaa walaalayaal waa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo markaa asxaabtiisa iyo atbaacdoodii dadkaas markaa akhyaarta ah ayaa la rabaa markaa maaragtay dhalinyartaas inay ku daydaan yacni inanka yar waa inu isweydiiyo yaad ku dayanaysaa waxaad ku dayanaysaa ha noqdo rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa cid kale ha ku dayani ka maanta aad ku dayanaysaa beri ku anfici maayo beri cidlada ayuu kaaga tegi beri iyadu cidlada ayuu kaaga tegaya markay dhabtu timaado oo la isla dhaadhaco yaa ma noqonaysa adaan kugu dayanayo i badbaadi sheekadu noqon mayso adaan dhaqankaagii raacee i badbaadi ma jirto marka iminkaad dowdahay waa inaad ishagaajiso oo dhaqankaaga hagaajiso ood u soo laabato sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam iyo sunnadii saxaabada ood u soo laabato dadkii salafka ee wanwanaagsanaa ee qiimaha badnaa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu raalli ka noqday maxaa inoo diidaya inaynu ku dayno walaalayaal kuwa ilaahay uhi radia allahu canhu waraduu canhu maxaa inoo diidaya inaynu ku dayno walaalayaal ibliis xun oo la garanin meel uu ka soo jeedo inaynu raacnana markaa maxaa markaa inagu kalifaya waxa inagu kalifaya waa hawa raac qofkii hawadiisa raacaya oo isla malaha haddaad raaci weydo malaha waxaad noqonaysaa reemi yaroo hadda magaalada soo galay qofkii intaasuu ka aaminsan yahay hadduu ninkaa shaydaanka uu raaci waayo dhaqankiisa oo labiskiisa wanaajin waayo yaa wuxuu isleeyahay wallaahi waa lagugu caayo waxaa la odhanayaa kani maantuu magaalada soo galay reer magaalba maaha waa nin dambeeya waa nin waxa weeyaan weli yacni waxa weeyaan xagga dambe socda arrinta noocaasa laga yaabaa ardayga in markaa maxaan ku dhahday maaragtay inanka yara dhalinyarta ay ku wareegayso maskaxdiisa maya taasi waxa weeyaan waxba kama jiraan adi waxaa ku anfacaya waxa weeyaan waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku amray ood qaadato inaad rasuulka raacdo sala allahu calayhi wasalam saadadeeda rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu markaa u noo jideeyey nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo atbaacdiisa iyo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam akhyaarta wan wanaagsan in markaa aynu ku dayno walaalayaal marka dhalinyarta waxaan kula talinayaa oon ugu nasteexaynayaa war waxaad raacaysaan ood labiska aad kaga dayanaysaan dhaqan kaga dayanaysaan ha noqdo nebiyullaahi moxamed iyo saxaabadiisa iyo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu noo jideeyey inaynu ku dayanno faqad sharaca allahu liqtidaa'a bilkhaliilayn wa atbaacihimaa fii cibaadati illaahi tabaaraka wa tacaala wa tarki maa siwaah ilaahay wuxuu noo jideeyey tabaaraka wa tacaala aliqtidaa'a bilkhaliilayn
labadaa khaliil inaynu ku dayano waa nebi maxamed iyo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo wa atbaacihimaa labada atbaacdooda inta raacday inaynu ku dayanno ilaahay muxuu noo jeediyey subxaanahu wa tacaala inaynu ku dayanno bilkhaliilayn labada khaliil waxa weeye waa nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam iyo atbaacdooda inaynu kaga dayanno fii cibaadati illaahi subxaanahu wa tacaala cibaadadaada iyo dhaqankaaga waa inaad labada imaam ee khaliilaynka ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jeclaaday waa inaad kaga dayata markaa cid kale ha ku dayni markaa walidaalika saa daraaddeed inaad iskaga tagto wixii ka soo hadhay laakiin waxa musiiba walaalayaal oo la yaab leh walaakina almusiiba idaa afsada aladaa waxa walaalayaal maxaan ku dhahday musiibo weyn ah wax laga naxana ah aabbayaashu haddii ay xumaadaan ilmihii muxuu ku dayntalow aabbihii dhalay hooyiya aabba hadday xumaadaan oo dhaqankoodu wuxuu yahay ilmihii yaraana maxaad u malayn soomaalidu waxay ku maamaadaan yacni waxa weeyaan hash maxay ahayd maamaadii soomaalidu yacni waxa weeyaan maxaad u malaynaysaa geela kiisa waaweyni markuu durduriyo kiisa yarna maxaad u malayn kiisa yarna markaa maxaad u malayn kiisa weyni markuu durduriyo geela kiisa yaryarna maxaad u malaynaysaa walaaliya taa waxaan ka wataa markay aabbayaashu ay xumaadaan oo aabbihii subxaana allah masaajid bawna soo gelaynba masaajid ilaahay ma yaqaano bayd ilaahay soo geli maayo jimcaha laga yaabaa inuu soo galo masaajid iyo maalmaha ciidaha ayaa laga yaabaa inuu soo tukado laakiin ayaamaha kale aan lagu aragba beydka ilaahay subxaana wa tacaala haddaba ilmaha uu dhalayna maxaad u malayn aabbihii markuu sidaa yahay hooya sidaa ay tahay aabbihii marka ilmihii yaraa maxaad u malayn walaalayaal walaakina almusiiba idaa afsada alaabaa musiibadu waxay tahay marka ay fasahaadaan labada aabba ay fasaadaan hooyihii aabba markay fasahaadaan oy dhaqan xumaadaan marka waxaan leeyahay labada waalid horta idinku iswanaajiya ilmaha yar waxa weeyaan wuxuu wanaagsananayaa markaad adigu iswanaajiso oo dhaqankaaga aad toosiso ilmuhu markaasuu noqonayaa ilmo fiican laakiin ilmi yar hadduu ka arkaya dhaqan xumo cibaadadii aan kugu arkayn adoon salaad tukanayo ku arkayn adoon masaajid tagayo ku arkayn adoon meelaha uun maaragtay maqaaxiyaha iyo meelaha musiibada iyo balaayada ka dhacays hadduu ilmi yar uu kugu barto bayd ilaahay isna soo geli maayo xaaraan bay ka tahay marka waxa weeyaan aabbayaashu inay iswanaajiyaan maxaad u malaynaysaa ilmihii yaraa aabbuhu wuxuu kula dagaalamayaa wardaa waxaan xun daa buu leeyahy dhaqan xumadan daa buu leeyahy wuu ku dilayaa matalan wuxuu ku dilayaa iska ilaali qaadka iska ilaali sigaarka asxaabta xun iska ilaali isagiina asxaab buu la socda asxaab xun buu la socda aabbihiina wuxuu arkaya isagoo asxaab la socda asxaab xunxun la socda walidaalika waxa uu leeyahay qaadka iyo sigaarka iska daa ma fiicno isagii baa markaa haddana cunaya haddana wuu u dirsanayaa waxaa laga yaabaa markuu ilmi yaraa ku arka qaad ama sigaar uu ku arko inuu garaaco saacado kadibna uu yidhahdo hoo ii soo iibi subxaana allah ala dafiir kadibna uu yidhahdo saacado kadibna hoo aabba ii doon sigaar maaragtay dukaanka iga doon halkan mijin iga soo qaad hamar dhaweydna wuxuu ku dilayay ha u dhowaani ilmi yaraa markaa muxuu arkayaa walaalayaal in xoog la isku sheeganayo meeshu tarbiye maahee war waxaani xaaraan maahee xoog baa la isku sheeganaya faham noocaasa ayuu ilmi yaraa markaa uu qaadanaya walaalayaal taasi saar markayna u dhicin walaalayaal aabbayaashu waa inay ishagaajiyaan oy cibaadada ay ku dadaalaan oy labiskooda ay wanaajiyaan ilmuhu markaasuu noqonayaa ilmo fiican walaalayaal waxaa markaa looga baahan yahay qofka muslimkaa oo ugu horreeyaan aabba iyo hooyo inay iswanaajiyaan walaalayaal in aad ay isku wanaajiyaan oo dhaqankooda markay wanaajiyaan khaasatan markay la joogaan ubadka war ubadka marka aad la joogto iska ilaali wax xun inaad markaa aad ku dhaqanto inaad wax caydo inaad wax aflagaadayso inaad hees dhegaysato in wax ilaahay tabaaraka wa tacaala raalli ka hayn inaad markaa yacna isticmaasho iska ilaali ilmaha yar markaad la joogto اسك إلى الآذق والفقو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدنيا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.